waxay noo shidaysid cajabay baadi goob xoogan ugu jirtay Soomaaliya waxa uu weeyay madaxtooyada ay ka leedahay kulankan ayaan goor hore sheegnay inay tahay sawirka guud ee madaxweynuhu uu dunida u tuso inuu dhammaan dowlad goboleedyada afarta ahayd ee koonfurta iyo gobolka Banaadir ay wali jecel yihiin oo hayo laakiin cutubka doorashada ayaa waxa ugu weyn ee shirka laga sugayo siyaasiyiinta kala duwan ee dibad joogga ee kursiga madaxtinimada Soomaaliya baadi goobaysa waxay sheegeen in loo baahan yahay in dhammaan doorashooyinka dowlad goboleedyada la qabto oo aan muddo kororsi kale la aadin laakiin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ajandaha maanta kulanka sheegay inuu doonayo madaxda dowlad goboleedyada sanad dheeraad xukunka sii joogaan isla markaana 2025 dhamaadkeeda laga wada shaqeeyo sidii doorasho qof iyo cod ay uga dhici lahayd guud ahaan Soomaaliya iyadoo doorashada 2026 kana doorasho qof iyo cod lagu galay heer federaal madaxda dowlad goboleedyada ayaa aragtiyo kala duwan kulanka ka soo jeediyay waxaana arinta doorashada oo ahayd waxa ugu ballaaran ee dhammaan dhinacyada laga eegayo ay sheegaan madaxda dowlad goboleedyada qayb ka mid ah inay doonayaan inay qaataan halka sano ee muddo kororsiga ee madaxtooyada Soomaaliya ay soo jeedisay waxaana ay sheegeen sidoo kale inay diyaar u yihiin fulinta qodobada arrimaha fiila Soomaaliya ay ku bedelanaysa halka sano ay ka mid tahay guddiga doorashooyinka iyo dhammaan xeerarka la xiriira ama hindisayaasha sharci ee doorashooyinka la xiriira horyaala baarlamaanka tobnaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmedoobe ayaa la sheegay inuu maanta ka aragtay madaxdii kala duwan ee kulanka soo qayb gashay isla markaana uu sheegay in aan laga hadli karin arrimo la xiriira doorashooyinka 2026 iyadoo aysan madasha u dhameyn dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka dowladda federaalka ee Soomaaliya taas oo la jeeday dhinaca Puntland maqnaanshadeedu in shirka ay dhaawac weyn ku tahay wakiilada caalamiga ah ee todobaadyada la soo dhaafay waxay aad ugu cadaadinayaan madaxweyne Xasan Sheekh in hadii doorasho Soomaaliya 2026 laga hadlayo ay tahay in wada ogol siyaasiyiinta oo dhan laga